Assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida aad ku qurxin karto shaashada telefoonkaaga iPhone-ka ah. Haddaba waxyaabaha haddeertan kuu muuqda ayaan ku tusi doonaa sida aad ku saaran karto, sida barnaamijyada aad badanaa isticmaalayso. Sidoo kale waxaad saaran kartaa qayb kuu sheegaysa macluumaad ku saabsan telefoonkaaga sida bateriga oo kale iyo wixii la mid ah. Waxaad la soo degaysaa barnaamijkan lagu magacaabo Top Widgets. Markaad la soo degto waan furaynaa barnaamijka. haddaba barnaamijka waxaa ku jiro intaasoo nooc oo kala duwan ayaad shaashada saaran kartaa. haddaba qaar yar oo keliya ayaa lacag ka umleynaa, laakiin badankooda waa free. haddii aan dhammaan oo kutusaa ku dhaho sida shaashada loo saarayo, muuqaalka wuu dheeraanayaa. laakiin waxaan ku tusayaa labo ayaan kaa tusayaa. laakiin haddii aad wadada aan hadeertaan ku tusaya aad marto, dhammaan isku wada oo keliya ayaa loo saaraa shaashada. haddaba kan ayaan tijaabinaynaa barnaamijyada baraha bulshada oo kale. haddaba markaan taabano kadib haddii aadan kan isticmaalaynin Spotify-ga, waxaad ku bedelan kartaa barnaamijka aad isticmaalayso. sida hadeertaan waxaan ku bedelaynaa Snapchat ayaan ku bedelaynaa. Okay, haddaba midka kale isla noocan ayaad ku bedeli kartaa. Facebook hadaan isticmaalaynin oo kale, yacni waad bedeli kartaa. sidoo kale waxaad bedeli kartaa midabka cadaanka ay ka dambeeya aad bedeli kartaa, iyo sidoo kale qaabku uu eg yahay xitaa waad bedeli kartaa. Okay, hadeertaan waxaan ku daysanaynaa qaabkaas. kadib waxaan leenahay qaybtan waxaan ka dhiganaynaa inaynu ka dhigano yacni white-ka ka dambeeyo. waxaan sameynaynaa inaynu doorano yacni shaashada waxa hadeertaan noo saaran ayaan rabnaa inaan doorano. waxaan sameynaynaa inaynu shaashada yacni taabano. kadib waxaan rabnaa inaan meel banaan aan screenshot ka qaadano. screenshot aad kasoo qaadanaysaa meel banaan. kadib waxaan ku laabanaynaa barnaamijka ayaan ku laabanaynaa. kadib yacni calaamadan plus ayaan taabanaynaa. markaan taabano kadibna waxaan leenahay allow photos. waxaan soo dooranaynaa screenshotka ugu dambeeyay. saa ujeedaanba wuu soo doortay. kadib hadeertaan already wuu kuu dooray. kadib waa iska xiraynaa. haddii aan ku laabto qaybta transparent-ga, haddii aan ku laabto waxaan sameynaynaa yacni positionka ama meesha lagu dhigayo, dhexda ma lagu dhigaa, xagga sare miya hoose, adiga kala dooranaya. hadeertaan waxaan dooranayaa xagga sare. kadib waan ka baxayaa, save ayaan leenahay. kadib wuxuu ku tusayaa sida aad yacni shaashada hadhow u saaran karto. haddaba si aan shaashada usoo saarano, waxaan sameynaynaa inaan kasoo baxno. kadib meel faaruq ayaan taabanaynaa. markaan taabano yacni waxaan dooranaynaa calaamadaas pluska ah. kadibna waxaan raadinaynaa barnaamijka ayaan raadinaynaa. kadib barnaamijka ayaan dooranaynaa. kadibna yacni waxaad dooranaysaa cabirkaaga. hadeertaan cabirkaa soo dooranay wuxuu ahaa mediumka ayaan dooranaynaa. kadib waxaan leenahay hadda waxaad dooran kartaa yacni cabir walba meesha ku jiro. waxay ku xiran tahay widgetka aad soo dooranayso cabirkiisa. haddaba widgetkaan soo dooranay cabirkiisa kan oo ahaa. kadib waxaan leenahay waan taabanaynaa. kadib waxaan ka dooranaynaa edit widget. kadib waxaan kasii dooranaynaa choose. kadib waxaan dooranaynaa midkii hadeertaan aan soo sameysanay. saa ujeedaanba waxa kuu soo koraya shaashada yacni widgetkii hadeertaan aan soo dooranay. haddii aan Snapchat ku dhufto, saa ujeedaan wuu shaqaynayaa. sidoo kale waxaan sameyn karnaa inaynu soo dhigano qaybta macluumaadka oo kale oo kuu sheegaysa telefoonkaaga. isla sidii ayaad sameynaysaa. saa ujeedaanba weliba kan waxaa sameyn kartaa inaad backgroundka yacni midabo kala duwan aad doorato. saa ujeedaanba midabo waad bedeli kartaa. laakiin hadeertaan waxaan isku dayaynaa inaynu isticmaalno transparent-ga ayaan rabnaa, waayo ma rabno midabadan inay shaashada inuu korto. waxaan isticmaalaynaa yacni sawirkii markii aan screenshot ka soo qaadaynay ayuu isticmaalayaa. kadib waxaan leenahay save. positionkan waxaan dooranay qaybta dhexe ayaan dooranay. waxaan leenahay plus ayaan leenahay. kadib waxaan soo dooranaynaa widgetkii. isla sidii hore oo keliya ayaad maraysaa. kadib waxaan dooranaynaa mediumkii. kadib waxaan leenahay add widget. haddii uu ahaan lahaa mid yar yacni yariska ayaad dooran lahayd. waan soo qaadaynaa, dhexda ayaan keenaynaa. kadibna waan ka baxaynaa. kadib waan taabanaynaa. waxaan dooranaynaa edit widget. kadib choose ayaan leenahay. kadibna waxaan dooranaynaa widgetkii. saa ujeedaanba shaashada ayuu kusoo koray. haddaba qaabkan ayaad ku sameysan kartaa dhammaan widgetyada ku jira barnaamijka dhexdiisa. waxaan rajeynaya inaad fahanteen muuqaalkan. sidoo kale waxaa ku jiro qayb icons, wallpapers, waxyaabo badan ayaa ku jiro barnaamijkan. yacni haddaan waa ka hadlaa dhahona yacni muuqaalka waqtigiisa aad ayuu u dheeraanayaa.